baxay ciidamada danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka ayaa qalabkooda la xiriirinaya isla markaana doonaya inay ka baxaan gudaha Soomaaliya. War cusub oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in askartooda ka baxayaan Soomaaliya isla markaana ay ku sii sugnaan doonaan wadamada qaaradda Afrika. Warbixin uu qoray wareyska Army Times ayaa waxa uu ka soo xigtay taliyaha Africom Steven Townsend oo sheegay in ciidamada Mareykanka ay tagi doonaan Djibouti ama Manda ee wadanka Kenya. Ciidamo kooban oo Mareykan ah ayaa weli Soomaaliya ku sii sugnaan doona sida uu sheegay taliska Africom. Waaxda difaaca ee Mareykanka Pentagon ayaa waxa uu sheegay in 4tii bishan December ay ku dhawaaqday in ciidamada Mareykanka ee Donald Trump oo Africom ku sheegay inay ka baxayaan gudaha Soomaaliya. Howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku jira duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isla markaana ka geysta gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka. Ciidamadaas ayaa waxa ay tababaraan ciidamada danab oo ah isla markaana ciidamo ka amar qaata wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Haddaba maxay yihiin ciidamada danab? Danab ayaa commandos ahaan loo tababaray isla markaana Soomaaliya markii ugu horeysay oo ciidamo noocan oo kaleeto u tababaran ay yeelato. Dowladda Mareykanka ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2013 bilowday tababarka ciidamada danab waxaana xilligaas lagu bilaabay hurin ka koobneed 105 askari. Sida saraakiil dowladda aan ka soo xiganay ay sheegeen ujeedada loo sameeyay ciidamada xilligaas ayaa ahayd in la howlgeliyo ciidaman isku dhafan isla markaana commandos ah oo ka howlgala gudaha Soomaaliya. Waxa ciidanka ay u baahnaan doonaan inay tababar iyo saanad ka helaan wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda Africom ee gudaha Soomaaliya oo magaciisa qariyay waxa uu sheegay in ciidamada danab ay ka qaataan amarka isla markaana ay ka sugaan wasaaradda difaaca ee Mareykanka, taas oo ka dhigan in ciidamada danab oo ay tababaraan ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay si toos ah u hoos tagaan ciidamada Mareykanka. Saraakiil hore oo ka tirsanaa ciidamada danab aqoon durugsan u leh arrimaha ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in danab ay ka kooban yihiin guuto 4 urur. Taliska ciidamada danab oo tababaray Mareykanka ayaa ku sugan saldhigga Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ee xarun u ah taliska ciidamadaas. Askarta halkaas ku sugan waxaa tiradooda lagu qiyaasay 600 oo askari. Sidoo kale magaalooyinka Gaalkacyo iyo Kismaayo waxaa ku sugan min hal urur oo hadda isla markaana ka tirsan ciidamada danab oo uu tababar Mareykanka. Jowhar waxaa laga hirgelinayaa urur kale isla markaana hoos tagaya ciidamada Africom gaar ahaan ciidamada ka socda wadanka Mareykanka. Haddaba waa maxay shaqada ay qabtaan ciidamada danab? Si ka duwan ciidamada kale ee militariga dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan commandos gorgor, danab waxa ay howshoodu tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana mar walba la arkaa iyagoo howlgallo ka fulinaya goobaha ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ujeedada ciidanka ayaa ah burburinta xarumaha Al-Shabaab ay ku tababaraan isla markaana ay ku sugan yihiin gaar ahaan ay kaga sugan yihiin gobolada Shabeellooyinka iyo sidoo kale Jubbooyinka. Inta badan ma ahan ciidamo hal meel oo kaliya ka yimaada marka laga tago inay ku sugan yihiin xerada Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose.